ilaah baa mahad iska leh oo mar walba noo suurtageliya oo noo fududeeya kulamada noocan oo kale ah khaasatan kulankan maanta aan isugu nimid oo ah gabagabada wadatashiga qaranka uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha ay qayb ka ahaayeen dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda iyo gobolka Banaadir sharaf bay tahay inaan kala soo qayb galo kulligiin aad ka soo qayb gashaan xafladan aan ku soo gabagabeynayno aan ku soo xireyno wadatashiga guud oo aan ku gaaraynay heshiis siyaasadeed oo doorasho wuxuuna noogu dhammaaday guul iyo noogu dhammaaday waxaan leeyahay hambalyo waxaan u hambalyeenayaa ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir waxaan leeyahay hambalyo mar kale waxaad mudan tihiin bogaadin waxaad mudan tihiin sharaf waxaad mudan tihiin ammaan shaqadii adkayd oo aad qabateen oo aan ognahay oo muddada dheer soo jiitamaysay doodii adkayd aad soo gasheen 3 bari 4 bari aan soo dhaafnay oo ay maanta ugu dambeysay dulqaadkiinii faraha badnaa iyo dadaalkiinii ay ugu dambeysay tanaasul inaad la timaadaan oo isu tanaasushaan si dalka uu u aado doorasho loo dhan yahay doorasho raali laga yahay doorasho wada ogol ah oo kulligeen aan wada qaadanay oo aan wada aqbalnay waxa weeye guul yahay guul noo soo hoyatay annaga kaliya ma aha waa guul soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan rajadoodii iyo hamigoodii kor u qaaday maxaa yeelay waa inaan fahamnaa dadka Soomaaliyeed waxay doonayaan deganaashay rabaan deganaashay doonayaan waxay doonayaan doorashay rabaan waana u diyaarsan yihiin marka runtii waa idinkaga mahad celinayaa juhdigaad geliseen maanta ummadda Soomaaliyeed inaad ka farxisaan aad iyo aad baan runtii idinkaga mahad celinayaa waxaan rabaa inaan mahad gaar ah aan u celiyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka hoggaankiis uu ku hoggaamiyey sida uu u cazumay dowladaha xubnaha ka ah dadaalkiisii faraha badnaa uu dhabar adeegay uu u dulqaatay doodii faraha badnayd oo dhinacyo badan ka imaanaysay intaas waxaa dheer nabadoonnimadiis sida uu ugu dhex jiro waad ku mahadsan tahay ra'iisul wasaare sida runtii aad u hoggaamisay golahan wada tashiga ah ee wanaagsan si aad u hoggaamisay aad baan runtii kaaga mahad celinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyaga naftigooda waxaan rabaa inaan la dardaarmo jidkan waa soo marnay khibraddeedana waa leenahay waxaan idinka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed idinka codsanaysaa madaxdii halkan soo istaagtayna ay idinka codsatay inaad hawshaan laydiin xil saaray oo mas'uuliyaddiisa aad leedihiin inaad hor u dhaqaajisaan doorashadan waxay u baahan tahay heshiis waa la gaaraa laakiin waxay u baahan tahay hirgelin waxay u baahan tahay dhaqangelin waxay u baahan tahay dhammaystir iyo u baahan tahay marka runtii mas'uuliyaddan idinkaas ka leh idinkay hadda idinku soo wareegtay the ball is in your court saasaa la yidhaahdaa aniga kaalintaydu iyo shacbiga guud ahaan kaalintoodu waxa weeye inaan idin kaalmayno oo aan idin duceyno oo aan idin ku tufno oo aan idin barakeyno waan idin barakeyno hawshaan waxaan idinku duceynaa inuu Ilaahay idin fududeeyo hawl sahlan ma aha dhamaystirkeeda waa naqaana Ilaahay inuu idin fududeeyo oo doorashadan inoogu dhamaato doorasho nabada doorasho hufan doorasho xalaal ah murashax kasta qof kasta oo muwaadin ah oo doonaya inuu dalkiisa u adeego oo public service uu qabto inuu xuquuqdiisa uusan idinka waayin
aad cadaalad u samaysaan waxaan rabaa hoos inaan ka xariiqo koontada ama qaybta dumarka yaan rabaa hoos inaan ka xariiqo dumarku waa lafdhabarka bulshadeena weeye waa hooyooyinkeen waa xaasaskeenna weeye waa gabdhaheenna waxaa loo baahan yahay inaad xuquuqdooda xaqiijisaan oo kootada la sheegayo oo ah 30% inaad muujisaan markaan inaan 40 gaarsiin karno hadduu eeba yiraahdo cafiska walaalkay uu soo jeediyey madaxweynaheedii hore oo aan saaxiib ka nahay Sheekh Shariif waa wada qaadanay Soomaaliya anna waa idin cafiyey cafigiina waa qaatay aadii cafisay aan cafinay waa qaatay waana runtii wax loo baahan yahay inaan ka gudubno sidoo sheegay waa dhab waxa weeye waa siyaasad waxaan ma aha qof nacbaysi ma aha soo sheegay weeye marka cafiskaas ilaahay hanoo qaado qulubteennana ilaahay soo geliyo iyadoo dhab ah waxa weeye waxa balan oo ah inaan diyaar u nahay ama aan u diyaar garownay doorashada insha Allahna doorashadan waxay ku dhamaan doontaa guul والسلام عليكم ورحمة الله. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier